annaga caydiid waa noo noolyahay markii ugu dambeena waa noo noolaa kiiskiisuna kiis toog iyo midna ah ma ahayn diyadiisa ka badana ku baxday hadda caydiid annagu beriswa waxaan tagaynaa xabsiga dhexe haddaan ka weynana xasan sheekh maxamed gurigiisa toosan usoo abaaraynaa caydiid hore uu ka dhashay waana dhintay si qaladaana lagu dilay insha allah waan u aari doonaa waana u aaraynaa kiiskan maanta iyo midna maaragtay xasan sheekh maxamuud waxa uu ka ogaa lama arag ma uusa baarin inuu qaldan yahay inuu saxan yahay inay qabiiladu heshiiyeen midna ma uusa ogaan asagoo qolo gaara ujeedka leh oo qolo gaara siyaasad maaragtay gaara ka lahan oo barnaamijkan fuliyey 10 saac habeenimo saxiixay bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu cabdiqaadir sheekh xasan kiiska dable caydiid horta aniga caydiid waxaa adeerkiis arrinkaasuna wuxuu ku dhacay si qalada oo cad oo ku dhacay qofka bini'aadanka qof waa dilaa shilna waa galaa laakiin sharciga in la mariyo waayo ma garad arrinkaas sharci maaragtay sharci la'aan u dhacay hadday ahaatay dardaaran lagama qorin wax looga qoro lama arko annaga madaxweyne xasan shiiqaana dilay insha allah wada caydiidna dadow maaragtay ka dhashay dadna maaragtay meelay ku sugayaan insha allah waxaan u maleeyaa arrinkaas sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ka jawaabno waxaanu garayba dagaal u gashay la yidhi caydiid talow ka dhashay arrinkaas waxaa keentay caydiid arrinka uu galay waxa uu ahaa si kama oo ahay ilaa 5 sano wuxuu u xirnaanay cadaalad darro ay ahayd kiiskan maanta iyo midna maaragtay xasan sheekh maxamuud waxa uu ka ogaa lama arag ma uusa baarin inuu qaldan yahay inuu saxan yahay inay qabiiladu heshiiyeen midna ma uusa ogaan asagoo qolo gaara ujeedka leh oo qolo gaara siyaasad maaragtay gaara ka lahan oo barnaamijkan fuliyey 10 saac habeenimo saxiixay maaragtay waxa iska waraysa lama arag meydkiisa waa nagala qariyey arrinkaasoo si xun oo ku dhacan wax daawo aan ka qaadan doono lama arko caydiid waxaan yeelaynaa waxaa liinin iyo godkii la gelaa lama kala qariyo annaga caydiid marna walaalihiisaan nahay marna waarid aan nahay dhacdadaba shalay dhacday oo daraad dhacday sida maaragtay aan xanuunkaas u dareennay ayagana la dareemi doonaa jawaabteeda insha allah waxaan ula jeedaa caydiid hore uu ka dhashay waana dhintay si qaladaana lagu dilay insha allah waan u aari doonaa waana u aaraynaa arrinkaa danta siyaasadeed laga lahaa waxau ahay arrin maaragtay madaxweynuhu oo wato oo koonfur galbeed maaragtay oo weji ka raadsanayay siyaasadna ka raadsanayay arrinkaana arrin waxau ahay muddo badan soo socday hadda caydiid cadaalad darraa ku timid cadaalad darrada caydiid ku timidna insha allah maaragtay jawaabteeda waa naga helayaan dadkaas wax ogeysiina ma nala siin ma noola sheegin siyaasiyiintiisii lama ogeysiin odayaashii lama ogeysiin dadka uu ka dhashay lama ogeysiin 10 saac habeenimo sidii maaragtay nin qawaarija loola baxay qawaarija xitaa dhaqankaas maaragtay kuma kacdo waa la dilay kateenadii lagama furin si xunaa loola dhaqmay hadda annagu maaragtay habeen iyo maalin arrinkaas kama seexano insha allah ilaana biyihiis u caddaysaa anagu arrinkeena maaragtay maraan ka jawaabna waa ka jawaabayna qorshahaas hal siyaasi oo caydiid maaragtay arrinkiisa ka hadlay oo caydiid waxuu ka dhashay qabiil ballaaran ku dhashay qabiilka ballaaran oo ku dhashay caydiid saraakiil waa leeyihiin xildhibaanna waa leeyihiin wasiirra waa leeyihiin hal qof oo ka hadla lama arko arrintaasuna haddii arrin siyaasada ay tahay oo madaxweynaha ay laga yaabo inay isfahansan yihiin dadkaasuna ayagana waa noo soo caddaa doontaa dadka caydiid heebta la ah oo maaragtay siyaasadda lagu jiro ama lagu matelana ma aga harayno arrintaas maalin maanta ayagana aan la xisaabtami doonaa ugu dambeyn dalabkeena iyo baaqeena wuxuu yahay xasan sheekh maxamuud asagaa 10 saac habeenimo saxiixay caydiid asagaa dilay asagaa maaragtay si cad oo bareera u dilay arrintaas xasan sheekh maxamuud hadduusan waxba ka qaban insha allah hadda caydiidada ku dhashay macnaha waan anagu jawaabteena waa arki doonaa dadkaas annaga caydiid waa noo noolyahay markii ugu dambeena waa noo noolaa kiiskiisuna kiis toog iyo midna ah ma ahayn diyadiisa ka badana ku baxday hadda caydiid annagu beriswa waxaan tagaynaa xabsiga dhexe haddaan ka weynana xasan sheekh maxamed gurigiisa toosan usoo abaaraynaa waana weydiisanaynaa caydiid meesha uu nooga maqan yahay iyo meesha uu ku ogaa annagu isagoo xiran oo noo xiran aa ogeed